السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يوم ملك استو جوكتان بوايد السلامي وحن ربا إن إذن لو ذاقو وحقا وربحين أو كسابسان عذر كي كورونا فايروس أو فربا عن رنتي كوايا دونك أوردن مقالة جارهان عن كنا الله سيالة واشنطن أو رنتي ماشا مريكان كأوقات كدتك أو لمن يان إلى هدا تقريبا وحن فيليا تضباط كهر بيهد مركيان إعلامين يان لها قفك يقوه ريبا كل انتي maantoon idinla hadlayo dadka dhimashadu waxay maraysaa 38 qof statekan kaliya 30 qof baa ku dhintay 373 qofna maanta waa dadka u jiifa sidaas daraadeed waxa la soo rogay oo stateka looga dhawaaqay maanta 250 qof ka badan inayna meel isugu imaan karin qaybtii caafimaadka iyo qaybtii xukuumaddu intuba ay isku raaceen arintaas marka haday timid waxay saameyn weyn ku leedahay meelihii cibaadada sida masaajidda oo kale jumcada ayaa inagu soo aadan dadka masaajidka isugu yimaadaay waa dad badan oo kun kor u dhaafaya sidaas daraadeed waxaan ka fikiraynay sidii dadka la yeelayo in jumcooyin badan oo kala duwan la tujiyo iyadoo ummadda la xukumi kareynin waxaana noo soo baxday in jumcada la xiro jumcadan iyo jumcada ku xigta labada jumcaba uu xiran yahay masaajidka Abu Bakar maalinta jumcada salaadaha inta kale waa lagu tukan insha Allah ta'ala dadweynaha reesiyaala Washington masaajidka imaan jiray waxaan rabnaa inay ogaadaan oo jumcada ay ku tala galaan inay isku imaanin dadka waxaan kula talinaynaa u sheegaynaa sharciyan hadii jumcadii sabab sharci ah looga joogo waana arrin keenaysa in ay cudurdaar u noqoto inayna jumcada imaanin maadaama arwaaxdoodii iyo naftii loo baqayo mafsadadana la raba in la awdo intaynu maslaxa raadin lahayn sidaas daraadeed dhuhur ha iska tukadaan jumcada guryahoodana ha ku tukadaan insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala meel aan joognaba inaga badbaadiyo cudurkan iyo cudurrada kalaba dadka muslimiinta ana meel ay joogaan ba ilaahi subhanahu wa ta'ala ka wada badbaadiyo Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judami wa min sayyi al-asqam jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh